ciidamada iyo hubka waxa loo hayaa danaha dadka in lagu ilaaliyo ma aha in danaha dadka wax ka soo horjeeda lagu caburiyo arinta in xukunka la militarize gareeyo runtii dawladda Puntland si cad uga soo horjeeda waxaana qeexaya dastuurka ay ku heshiisay waa dawlad madaniya waa dawlad suldada lagu kala wareegayo doorasho waa dawlad aan marna ka dhicin in xoog lagu maamulo cid kasta oo dhinaca isku dayda ogaada way ku fashilmaysaa qof kasta oo damac ku jiro inuu ummadda u shaqeeyo wadada saxda ah inuu maraan runtii sida saxda ay tahay anigana taasaan kula talinaya dadka hadda reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed wadamada kaleeto aragtiyo siyaasadeed oo ideolojiyo ku salaysan ku kala duwan yihiin baa jirta Puntland anu hadda ma arko aragti siyaasadeed aan ku kala duwannahay laakiin waxaan arkaa damac siyaasadeed oo aan ku kala duwannahay damacana wadda aan ku xalinaa oo sameeynay wadadaas baan ku badbaadi karnaa hadii wadada wadda ka duwan la maro foolxuma ka dhalanaysa foolxumada dhalatana hadde macna sameyn maysa hadhow inaan iscanaano ama ishaaraano waxaan u baahannahay culimadii waa joogtaa saraakiishu waa joogtaa qaybihii siyaasadda ee dawladda waa joogaan Puntland waxa la rabaa isku haynteeda iyo maslaxadeeda in meel looga soo wada jeedsado masaalixda guud in la wada ilaaliyo midda siyaasiga ah ee Ilaahay ummadiisa ku abuuray ama wax kasta kala duwanaanshaha iyo in aragtida lagu kala duwanaado wax ceeb oo ay leedahay ma leh wadooyinka hadda markaa noo furan mar walba ma oranayno wadada kaliya furan wadada xisbiyadu waa la qortay laakiin 20 iyo dhowr sano soo furnaan weeyday oo mar walba laga gudbaayo laha maanta caqabada hortaagan haddii caqabado yimaadaan way wada joognaa laakiin mar walba isku dayga asalka waa ka haddii wax ka yimaadaan taladeeda dadka ay ka go'daa yeelan doona haddii Ilaahay idmo